siyaasi Axmed Maxamuud Nuur oo hore u soo noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo deegaanka Soomaaliland kana mid ah golaha dhexe ee xisbiga talada dalka ee kulmiya ayaa ka hadlay colaad beelo walaalo ah ku dhex martay deegaanka shidan waxaana xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in la soo afmeero colaadda soo noqnoqotay ee deegaanka shidan ku dhex martay beelaha walaalaha ah isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri waxaan jeclahay inaan wax soo kordhay waa warar soo gaarayay hadda aan maqlay sharciyo meeshii shidan la oran jiray ayaa dib wax yar uga soo noqdeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland dhamaantood waa inay halka tallaabo ka qaadaan way wax alla wixii gardaran oo arinta dib u bilaabeen waa in tallaabo sharci laga qaadaa way dhacay gawaarida la qaadan waa dib loo soo celiyo 48 saacadood hadii waa dib loogu soo celiyaa goobihii laga qaaday arintaana waa in si degdeg ah loo xiyay aqilo doqon ka waran baa leeyahay doqon aqilkii wuxuu yiri ma doqon ha yaani kula dhalan doqon sideedaba يعني كلان دلان waxaa la yiri aaqilow haday kula dhalato balka war adigu ila dhalashada ma xakamtid wuxuu yiri haday kula dhalato ha meel ka fog ka joogto yiri doqonto meel ku dhaweeyna joog la yiri aaqilow haday shisheeyo ka jeclaato ka war wuxuu yiri waa ku dilaysaa intaanay ku dilin dil doqon shisheeyo jeclaatay waa ku dilaysaa intaanay ku dilin dil buu